boqolaal dad oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo kuwa qurbaha dib uga soo noqday ayaa halkan oo ah xeebta Liido u yimaada inay ku nastaan kuna qaataan waqti ka duwan maalmaha kale ee raacdaynta nolol maalmeedka iyo waxbarashada balse tira badnaanta dadkani waxaa fursad ganacsi ka dhex abuuray dhalinyaro Soomaaliyeed oo xeebta ka hirgeliyay baaskiil loogu talagalay in lagu dulkaxeeyo biyaha muddo 3 bil ayay ku qaadatay Cabdixakiin Xaashi Faarax oo dalka dib ugu soo noqday bilowgii sanadkan inuu hirgeliyo adeegan oo qofkiiba uga kireeyo 10 daqiiqada lacag dhan $1 waa fikrad ay dhalinyaro badan ay la dhacsan yihiin gaar ahaan kuwa aan dabaasha ku wanaagsanayn Cabdixakiin oo maalmaha Khamiista iyo Jimcaha yimaada halkan si uu u shaqeysto ayaa marka hore ee u baahdo inuu gudaha badda galo waxaa lagama maarmaan ah inuu helo dad ku caawiya in baaskiilkani uu gudaha badda galo kadibna si caadi ah ayuu hadba dhanka uu doono ugu jihayn karaa isagoo adeegsanaya badeelaha ama seliska wareejiya labada shaag dambe ee baaskiilkan markan wuxuu wadaa mid ka mid ah dadka macaamiisha u ah waa mid u muuqaal eg marka aad ka fogtahay baaskiilkani inuusan socon oo uu biyaha iska dul sabaynayo hase ahaatee arintu sidaasi waa ay ka duwan tahay waxaan saaranahay baaskiil badda ku socda baaskiilkani dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa hindistay hal abuurkan oo wadankii keentay wuxuu ku sahlayaa inaad badda dul saarnaato ilaa inta aad doonto meesha rabtan aado waa adiga oo soconaya horan u socon kara gadaalna u noqon kara kaliya waxa u baahan tahay inaad labadaada adimood ka shaqaysiiso sida arka kartaba shaqadan taqaana waxaan ku soo arkay u noolaan jiray wadanka Masar halkaas oo markaan tagnay xeebaha Iskandariya Boorsaciid Ismaaciiliya ay oo jireen qalabaadkan fara badan wadanka markaan imaaday oo shaqo bilaabay ma arkin taqaana xeebta markaan imaaday Liido wax ay ku baashaalaan caruurtii ama dhalinyaradii meesha joogtay taas ay fiirkaas ugu dhalisay marka inaan qalabaadkan waxba ka bixin oo badeeleynaysa biyaha ku dhex dhamaashadaysa marka baddi waa kan iska dhamaashadaysa badan Ilaahina si looga faa'iideysto taqaana ma sha Allah lagu baashaalo fiirka waxa ugu dhalay qaab kale ah u sameeyay qaab kale ah u sameeyay shaqadan dhalinyarada ma markiraysa dhalinyarada horta marka hore inaan barno waxaan inay yihiin wax baashaal ah oo badeena Ilaahina si lagu baashaali karo lagu raaxaysan karo inay tahay waaye taas marka hore horta fiisku waa ugu bilaabnay inay horta arkaan oo ku maashaadaan oo bartaan kadibna markaas wixii walo awoodi karaan bixin karaan ayadoo loo fiirinayo marka ala xasab iyo waqti uu qofka qaadanayo inkastoo weli xeebta Liido ay ka dhiman yihiin adeegyo muhiim u ah dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca damaashaadka iyo dalxiiska haddana fikradani dhalinyaro badan waxay u arkaan mid wax badan ku soo kordhisay dalxiiska bismillaah magacii waa Yunus Cumar Macalin waa dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool waxaan isku diyaarinaynaa marka bacdi daraasadii waxa furmi doona jaamacadaha marka waxaan u baahanahay inaan maskaxda u sii diyaarino yani daraasadii marka waxaan u baahanahay agab aan ku sii yara xoogaa ku qaadano relaxing dhalinyaro isxil qaantay waxa sameysay barnaamijkan lagama heli jirin dalka muxuu ahay waxa muddo yar ka hor fikradaha ganacsi ee dhalinyarada ay hal abuuraan ayaa caqabada ugu weyn ee hor istaagta waxay tahay maalgelin la'aan haddii ay heli lahaayeen garab istaag dhaqaale waxay buddhig u noqon lahaayeen isbedel guud oo xagga ganacsiga ah dhalinyaraduna ay horseed u yihiin Munasar Maxamed Cabdi Dalsan TV Muqdisho